السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا دي سلام يا ميل البتو عالم كجوكتان وواسك تقبلوا وها كبلوا فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بالله متانا ين حيسقور السحب كيس قرشوا درشكيس كونوا لو ناقر شيكوسا ها جابك جالكتي معنا سوريا بنا وين شنتا وابوري ما انت وحاندين هيا أخرين حيصة بدن وكذا عدل كامريكا وحاجة عنتا لو صور دقين نين جاجوسها oo dadka rufiyaami jiray Soomaalida codadka turjumi jiray ya FBI da Mareykanka ay ka soo xirtay asaga oo ka yimid Soomaaliya airportka Dallas International Airport ee ku yaala magaalada Washington DC Ramadan Kareem meel walba ta joogtaan ninkan qisadiisa wax yar idinka daba geeraya oo aan aad u badnayn inta hadda idaacadaha ay haystaan yaan idinka daba geeraya insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo ninkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Cabdirasaaq laasneemkiisana weheliye ugu yeeraan Cabdirasaaq Xaaji weheliye ayaa la yiraahdaa ninkan wuxuu ahaa jaajuus ama tiftif ama rufiyaan qof qoloba hadalkay u taqaan rufiyaan buu ahaa wuxuu turjumi jiray codadka dadka Soomaaliyeed ee shakiga ka gasho shakiga ay ka galaan qoladan FBI ay shakiga ka gasho ya telefoonadooda la gishtaa asaga dhageysto wuxuu rabo ku turjumaa waxaa dhacday marka nin Virginia degan oo taksiile ya Soomaaliya 2015 Soomaaliya aaday waxaa looga shakiyay waliba siday FBI du ay tiri wuxuu ninkan Cabdirasaaq Xaaji weheliye ninka la yiraahdo soo report gareeyay hebel oo taksiile ahaa inuu Soomaaliya u dhoofay si uu ugu biiro ciidamada xagdirka ee loo yaqaan al-shabaab ninkii dabagal baa lagu sameeyay qoladii FBI da ee telefoonkiisii bay xiriirsatay dhageysi bay u dabagashay hal dhageystay tiri Cabdirasaaq Xaaji weheliye ayaa lagu yiri ninkan codadkiisa inoo fasir wuu fasirayay wax walba uu dhaho wuxuu dhahay sidan buu yiri kowga horena waxa soo report gareeyay Cabdirasaaq Xaaji weheliye ayaa dadka Virginia jooga report gareyn jiray waxyaabahan Virginia uga soo guuray kamid ah waa jaajuus tiftif beenaale ee dawladda Mareykanka gacanta maanta ku suran okay ninkii baa la weydiiyay lagu yiri ninkan aan daba soconno ee codadkiisa aad fasiraysid wax aqoon ma u leedahay wuxuu yiri anigu Soomaalida ma dhaxgalo waxaan soo galay waqtiyadii horeeto sanado horaan soo galay wadankan Soomaalida ma dhaxgalo warna kuma darsado ima yaqaano mana aqaano yiri waa been weeyaan ninkan uu turjubayo ee codkiisa uu fasirayo waa nin uu garanayo aqoon uu u leeyahay weey FBI da waa iska tagtay ninkii ba baaritaankii lagu sii wada la sii daba socday shaki ba FBI di gashay ninkan taksiilaha ah iska shaqaysanayo wax dambina gelin dadku Soomaaliyeed way baxaan wadamadoodii bay booqdaan ibna ma arkina ninkan muxuu noogu daray FBI tiri FBI di waxay daba gashay ninkii jaajuuska ahaa ee snitchka ahaa snitch balira ee snitchka ahaa yi daba gashay qoladii FBI da ay tiri ninkan Soomaalida inagu diro ee beento inooga sheego ee ma garanaysaa khaa'inul wadanka waxa weeye isaga naftirkiisina baaritaan ku furno weyn FBI di ninkii bay daba gashay Cabdirasaaq Xaaji weheliye ay daba gashay waxay soo ogaatay ninka uu dacweynayo ee uu dacwada ee magaranaysa codkiisa uu fasirayo ee hadda ka hor under the oath uu dhaartay gacanta dadka Soomaaliyeed qaar kood waliyo war Mareykanka sharciga oo yar sharciga waa la ixtiraamo mar hadda sharciga Mareykanka ku dhaarto maxkamadda tagtid oo lagu yiraahdo dhaaro inaad runta sheegayso beentana ka fogaanayso wax runta u eg iyo runta mar walba tana ku dhimanaysid gacantaada taago dhaaray ku leeyahay gacanta aad taagaysa anigu muslim baan ahay baad leedahay ma dhaaran laakiin sharciga iyo nidaamka wadankaad ku dhaaratay hadhow dood walba imaanaysa ama been walba oo sheegtid waxa lagu leeyahay asagoo dhaartay oo waliba ku dhaartay inuu runta sheegayo been noo sheeg halkaas dambi iyo qodob lagu hayaa oo waliga oo dambeetana lagu aaminayna xabsir aad ku muteysanayso ninka markuu wuxuu u dhaartay ciidamada FBI da wuxuu yiri runta sheegi been sheegi maayo wax runtaas dhinacan uga leexanay mana dhaarbay mariyeen meel bay dhigeen waa la daba galay asagii baa baaritaan lagu sameeyo la daba socday waxa la soo ogaaday ninka uu dacweynayo iyo magaalada uu dacweynayo ee maalin walba uu ku dhagay yahay
inuu yahay isniij kii ugu xumaa ee waliba dawladda si isniij gareenayo iyo ciidamada FBI-da si rufiyaanaya inuu yahay bay ogaadeen waxay soo ogaadeen ninkan uu yiri maba aqaan ilaa iyo 2010kii inay saaxiib ahaayeen oo ceesho milix ahaayeen oo isku dhaceen bay FBI-da soo ogaatay kaadi badane waa looga golbadiyaa baa liiri kaadi badane waa looga golbadiyaa baa liiri ninkii asaga ahaa sidii baaritaan loogu waday al-shabaabtu dadka ku dacweynayay iyo beentu dadka ku dacweynayay waxaaba la soo ogaaday ku leeyihiin hadda qoraaladan akhriyay ninkan waaba al-shabaab sirdoonkeedii oo FBI Mareykan u soo dirsatay walaal waa al-shabaab sirdoonkeedii oo FBI soo dirsatay si FBI macluumaadkeedii iyo dadkay daba socoto loo ogaado oo dhaqaalaha ay Mareykan iyo lacagaha loo soo aruuray ee leenka uga baxaan nacaskii jaahilka ahaa inkastoo Ramadaan tahay ku talax tagi maayay ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka ee isniij gareenayay rufiyaanay ee beentii waxa loo joogo turjuwaan oo wax sheeg waa sax laakiin beeri waxa loo joogo ummadda been ha u sheeg yaa shalay soo eelboor ka soo degtay oo Soomaaliya ka yimid oo la daba socday oo eelboorkii ka Dallas International Airport ka soo degtay yaa tartiib dhab la siiyo la qabtay yaa tartiib dhab la siiyo la qabtay idaacadii Mareykanka oo dhan baa la wada saaray macal BBC macal CBC macal Fox macal ABC CNN everybody baa idaacadiisa loo qabtay FBI iyo police iyo migration iyo wixii dhan baa isugu tagay waa rufiyaan baa ko title-kiisa la rufiyaan hore oo jaajuus ahaa oo dadka jaajuusi jiray codadka turjumi jiray dadka farta ku fiiqi jiray dadka innocentiga ee waxba galabsan farta ku fiiqi jiray asagoo katiinadaysan oo bahdilan oo aad iyo aad u bahdilan oo katiinadaysan oo bahdilan yaa airportka laga soo qabto xabsiga loo dhaadhicay afayeenka ciidamada amniga FBI-da Mareykanka yaa shir jaraa'id qabtay wuxuu yiri been buu sheegay umadu been u sheegay ciidankana been buu sheegay inaan waxba galabsanin oo la yiri ninka maalin ugu daba soconno codadkiisa Novosir yaa lagu yiri hebel ma taqaana waxaan haynaaba la yiraahdo soo trade gareenaya magaalada ku dhaaranayo ama magaalada ku booteynaya FBI baa rahay waan idin xirayo anigu baal shabaab seen karo laakiin tuugal shabaab buu haabali dhageysto waxaan aad uga digayaa marka ugu dambeyntii waa Ramadaan Kariim baan leeyahay waxaan hadda u digayaa oo aad iyo aad ugu digayaa gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed haddii aad rabtid inaad ciidanka amniga dalka Mareykanka rabtid inaad ku biirtid si xay oo sharaf lagu biir training-ka qaadato barka qaad laakiin FBI baan rufiyaan u noqonaya ama police baan informant u noqonaya waa rufiyaannimo lagu sharfi maayo lagu ciisin maayo lagu bahdilayo way lacagta ama lagu siinayo $7 $8 lagu qoriyo waa been way waa budget feego suuqa madoobe oo hal askari baa ku adeeganaya ciidanka kala dhan kuma yaqaanaan halka askari ay ku adeeganayo yaa jeebkiisa iska soo goonayo lacagta uu ku siinayo waa khaainnimo way dhageesh hadaa rabtid inaad wax noqotid si official wadanka ciidankiisa ugu biir tababar qaada training qaado adiga noqon qofka wax baarayo investigation ka sameynaya adiga noqon ha noqonin sida ninka hadda Cabdirasaaq Weheliye kale ee boorka laga soo qaatay ee rufiyaanka ahaa ee sniijka ahaa ee muddada badan rufiyaanayay ummadda Soomaaliyeed ee ultana Ilaahay dhulka asaga la gooyay ee boorka laga soo qabtay soo bahdilan alla bahdilanayay ee badana title-ka loo soo qoray dar muddo dhowda sawirkiisa soo dhigi doona inuu macnaha ahaa nin rufiyaane jaajuus bay ugu yeeran ama informant basaas magaranaysa FBI-da u soo basaashay oo ummadda magaranaysa waxba galabsan farta ku fiiqay kuwa hadda hawsha ku jiro ogow maalin bay khaldamaysaa arintaadu maalinta markay khaldantana criminal baa tahay handadaad baa lagu gulin doonaa fiiri handadaad bay ku gulin doonaan waanu ku xireynaa bay ku leeyihiin noocan baa lagu sameeyay waxyaabahaas oo dhan baa lagu adeegsanaa goor intay tahay hadda haddii ay rabtid inaad amniga wax ka qabato dalka Mareykanka aad jeceshahay
tababarkeeda qaado traininkeeda qaado adiga noqo askariga wax tababaray askariga wax baaraya adiga noqo laandheere dhalay oo ciidane oo tuuti wato ugu dambeyntii way soo gabagabeynaya Ramadaan Kariim badan la yahay jaajuuska ugu weynaa ee Virginia in muddada dheer ku daba jirnay ee jaajuuska ahaa maanta shalay laga soo qabtay Dallas International Airport xabsi uu ku jiraa waana la xirayaa raggii uu jaajuusay dumarkii jaajuusana ilaahay baa ka badbaadiyay asaar maanta ku jiro. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.